السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي هولي جدي قوي كصدق قولي قبلنا بجنة الله بلان لأمانتين بلان تلفيرين هوايدا صومالي وين سودات كده هرت ده لو كنت لصومالي قلت ودن كيانا ندعين كو ودن كيانا ندعين اللي بعد بلان أو نان وين وده صونا ودن كجرتا طلنا قبيل يوحنا لو جوجي كور كحصلان بلان فيرين ضد إسلام تام مساكين تقولنا ولا كان صومالي من كيديا لو هرتلين ما عوض دقمنا عوض في كل عشاء كذا إلا اللي يسمع الله قبل هذه لوي لا واقع الله hoygan aynu ku sugannahay saakayto xalay waxa looga seexday jawi degan iyo waliba farxad hase yeeshee saakay sida idin muuqata waa mid guud ahaan baa lagu soo wada baraarugay xaalad adag oo murugo leh kadib markii ay ka dhacday dhacdo fool xun oo aabihii qoyskaani si fool xun xalay xilli dambe ama salaadii subaxiga loogu dilay gurigiisa axmed odawaa oo ahaa aabihii gurigaani lahaa ayaa waxa lagu hurdilay xaaskiisa iyadoona ilaa iyo haatan aan lahayn cid dishay iyo waliba sababta lagu dilay axmed oo kamid ahaa dadka muruqmaalka ah ee magaaladani jooga bartaani meedkiisa laga qaaday iyadoona uu dilay qof aan haba yaraatee ilaa iyo haatan haybtiisa aan la aqoon dilka injineerkani caanka ka ahaa degmada kamidna ahaa injineerada dhisa guryaha ayaa ah mid saakay laga dareemayo sida muuqata hoygiisa iyo guud ahaanba xaafadda ubax ee uu ku geeriyooday markii lagugu hordilo saygaada oo aad farxad wada qaadanayseen waa arrin murugadeeda iyo weliba mahadhadeeda wadata maryan axmed oo ahayd xaaska axmed odawaa markii la dilayena ay is agjiifeen wada sheekaysanayeenna ayaa inooga warbixisay sida ay wax u dhaceen xalayto ani guriga dhex jiifay axmed isoo toosiyey gabadha yariista oo dhala oo ilmaha iigu weyn abaha gurigu soo gogol gurina ma qabina markaas hal qol aan ka dhawansaanin laakiin asi gaarigaas markuu soo hoydo gaarigaasaa loo goglaa baraaba kasta inta kuraastan laab baa jaadar sas loogu fidinayo ilaahay maqaadirta jaadariga gabadhii soo fidisay anagu isoo toosiyey marka wiil oo gabadha ka rabay baa u yimid markaasuu yidhi marinay soo bax wiilkaaga waxaan isku sheegnaa aan kuu sheegay guriga ka soo kacay banaankii ugu imid asagoo markaas qaad inta dhameystay qaadkii iska tufay madowgii ninka arkay madowgii markuu arkay baa axmed wuu soo degay marka haleelu gaariga ugu soo degay markuu ugu soo degay isla markiiba ninkan juuq iyo jaaq uu dhihin xabadii uu ku dhiftay saan weer waa iga furmi waaye meeshaas xabadda ku dhacday oo qoriga liifkiisa ku garaacay uu fujiya hadan marka inaan ordaas arko gaariga xaggiisa aan shirka xaggiisa aan wardoon xabadka ku dirsada kiisaan loo wadaay adhiid gaariga yiri marka gaariga yiri marka ninkan uu soo maray xagga shirka soo maray waa iga furay saas oo isoo kala tuuray gacantii qoriga uu ku hayaa marka saa ugu dhigay saana oo qabsaday marka alwalaalo waa idilna alwalaalo asagiyadii dishaadil alwalaalo waa idilna markaan saas dhaayo qorigii halkaas iiga dhuftay naas korkiisa marka qoriga ugu dhuftay oo sas ay kala tuuray marka kale axmed waa gacanka xaq darinaa dishay ilaahay uu soo bilcin doonaa ilaahay kan ma xaqiiqsanaysay markii qaadku ahaa ninkan ma aragtay wiilkaadii mana buurinan maana dhubneen buumana wuu qabay macawiistan garabkay u sirnay sidii oo nimanka geelka raac amulay u ahayd macawiista ilaahay maxaa ka baraya axmed gacanka xaq darinaa dishay wixii dilay inay muslimiinta dhan meel kastay joogaan noo soo qabtaan sharciga la horkeen sagaal ciyaal baan u dhalay wiil oo 9 jir ah baraago iiga dhacay laakiin 8 unuga u joogtaa 6 gabdhood iyo 2 wiil ah sharmaaka bire oo ahaa dariska axmed kadibna ay gabadhu u tagtay marka uu dilka dhacay kuna wargelisay in la dilay axmed oo raadka ninkaani xilli habeenimo qaaday ayaa ka warbixiyay inta uu la maray iyo waliba ilaa iyo haatan in aysan jirin wax gacan lagu hayo xalay xilli salaadii subax masaajidda laga caqabay oo salaada la tukanayay ayaan xabad maqlay xabadii baan ku soo kacay anoo xabadda xagee kaa jirtaa ayaa gabar ordiisa guriga soo gashay axmed marxuumka dhintay xaaskiisa ayadoo qaawan oo dheh sharmaakow
axmed waa la dilay anigu waa soo orday guriga hayr soo galay deris baan guriga degnaa ninkii oo meeda baan oo imid oo yaala dhulka waa isku duway ninkii raadkiisa ayaan ku orday toosh hadaan qaatay meelo badan ayuu ila maray booliskan wacay booliskii baa iyada booliska ila raad qaaday haddana booliskii waa ku maqan ninka hadda xabadda ku dhacday xabaddan way madaxa u dhacday fuuq waaye fuuqi ah ka haweeye xabaddaasaan ku dhacday ninka deris buu ahaa nin caabi yar oo wanaagsan buu ahaa axmed odaa waa la dhihi jiray qoyska axmed iyo ballibaatooyinka dadka loo geysana qofan waxba haleyn xoogiisa ku shaqaysana asaas loo dhibaateena war soomaaliya wadankeena soo dadkii dhiiggiisa wuxuu iska noqo wax caadiya war qof muslim oo la dilo adduunkan la rogo ayaa ka khayr badan war ma ogtihiin dadka dhibaatada u geysatay war qofka intee dhib loo geysana dad qof miskiin oo dhibaataysan la sii dhiba laa ilaaha illaa anta dadkaas oo hadda u xamaalo jiray 8 caruur iyo hooyadood maantay laa ilaaha illaa anta yaa u maqan ilaahay yaa u maqan laakiin dadka dhibkaa laga daayay war dadkaa laga daayay dhibka dadku dhigi cabaalay noqdeen dhibanayaal ay noqdeen wadankeena soo u degaa marka dadaa maalin walba dad qof muslim dhiiggiisa bikhayr xaq loo daadinaa allah ilaahay wadankeena nadiif ilaahu dadka xaqa tus ilaahu xaqa tus dadka laa ilaaha illaa anta yaa rabbil caalamiin ilaahay xaqa tus wax kaloo la sheega malaha allah ilaahay xaqa tus wax aan sheegno kala malaha